warqadaha handadaad ah ayaa la isku marsiiyey dalka Djibouti. Etoobiyaanka warqad handadaad qoray isla markii Masar u soo jawaabtay. qodobkaas waa ku falqeyn doona barnaamijkan. qodobka kale ee ku xigo falqeyn doona wuxuu noqon doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo Professor Kushagi la taliyaha Abiy Ahmed oo asagana yiri arrinkii ka digeenay buffer zone 150 kilomitir ah Soomaaliya gudaheeda Ethiopia ha ka samaysato ayuu leeyahay. wuxuu kaloo ku daray semi justifier waaye oo xaq ay u leedahay Ethiopia kulaha inay buffer zone Soomaaliya ka samaysato. iyadoo falqeyn doona hadduu Ilaahay mo. qodobka kale ee ugu dambeeya barnaamijkan aan ku falqeeyo wuxuu yahay arrin aan soo maqlay oo kaliftay ama soo dedejisay in masaarida ee dalkeena iyo arrimaha Ethiopia ay soo fargashtaan. arrinkaas soo maqlay waa idin falanqeyn doonaa. laakiin marka hore aan ku bilaabo warqadu Etoobiyaanka qore 2 maalin ka hor. Etoobiyaanka iyo Masar xiriirkooda wuu go'ay gaf waay oo janaal hadda furan ma jiro. marka warqada ay qoreen waxay u marsiiyeen dalka Djibouti. Etoobiyaankii warqada Djibouti u dhiibay Djibouti waxay u sii dirtay Masar. warqadii markay furtay waxaaba ku qoran ba Etoobiyaanku dhaayo Masar ay ciidankaada haday agteena soo maraan dabajaha ibra u dhigayna. yani qaab kaftana idinku sheegaa laakiin warqad sida ujeedaan waxaa ku qornaay danaheena danta Ethiopia Soomaaliya ee ka leedahay haddii carqalad ciidamadiin ay geliyaan hadda waa dagaal. saasa warqad ku qoran. Masar ma jixdo 2 saac kadib waa loo soo jawaabay saaxiibada warqad kale ordayso Djibouti timid. Djibouti markay warqada timid Etoobiyaanka loo sii diray. Etoobiyaanka warqada markuu furay waxaa ku qoran we will escalate. we will escalate inta macnaheedu waxa waaye fiiri warqada soo dirtay anaga dhag jalaq umasaynayna Allah xaalku waa ka sii darsiinayna haddaa ciidamadeena Masar aad taabataan ama xabad aad ku soo ridaan hal kala orda ka dhacayso. yani su'aash warqadii ay direen jawaabteeda saxda ah la siiyay. Etoobiyaanka haddaa afka ciyaalka xaafid idinku sheego waa booteen waxay dhaheen agteena daa'imaatid waqdila waa loo soo jawaabay waxaa yiri anima idileeha waa is arki doonaa Allah. shakada meesha soo maraysaa warqadaha marka yani waa intaas ogaada dhalinyaro xalka markuu meeshaas maraayo 2 dal oo yani la sheego in military ahaan ay dhisan yihiin oo geedkii ah markuu xalka meeshaas maraayo aad ay u adag tahay yani hadeertaan sida adduunka waa ujeedaan dagaalada soo batay dadkii wax kala qaban jiray UN-ka lagu sheegayo maanta waa qashin. UN-ka lagu sheegayo waxa ka awood badan macawisley runta idin sheegayo bogta aniga. marka maanta waa ujeedaan hadda xasuuqa yuhuudda ay ka wado Gaza waa maqasheen iyo tan hadda ka socoto arrimahan cakiran ee hadda Lubnaan ka socdo habeen iyo maalin. xitaa hadda waxaa bilaawtay bahaladii jeebka la gashanaya yararka taarka camal qarxooday macnaha. marka adduunku waxa la jixinjixay malahan. Masar waa ogtahay Ethiopia iyo Masar runta marka ka hadalno labadooda maanta waxaa dabacsan oo meel liidato taagan xanaaq ama xanaaqin Oromiyo ay soo daawado. Ethiopia meel liidato ayay maanta joogtaa waa kala furfurmuusa waraha ma maqashay kuwa waxaa jira maleeshiyaad oo Addis Ababa ku soo socdo. waagi baryaba warka waxaa akhriyaa 20 kilomitir soo saqeen yani Addis Ababa loo soo socdo. dad marka caasimadooda la qabsan rabo abo laba wada u banaan in dalkooda ay badbaadsadaan tallaabo alaali tallaabada qaadi karaan ay ku badbaadsadaan ama inay meesha ka cararaan. Abiy Ahmed wuxuu sameynayaa the first one taasoo ah tallaabo kastuu qaadi karo xitaa haddii Soomaaliya يعني إنه ربط دتكيس إنه مشغولية دجال أنا قاعد كياني مصر بلاي كل أوفره يعني وحيابها سوق فكرة وأنا أدونك تاريخ نوع عسوان عدا ونفل عاري نمو ما ده هذا مركي بربور عدواتي هتلر وسمعه كله هتلر هذا سلوسو ريحي ما مركي اللي قبسن ربي إن برلين وطاعرك كان ويري إن حبض إن عارفتين أوفره ماشى واحد دلكتين دلا ديارها أنتي هبدأ عنت الوها هلا يري سوسان هلا سمعه دالكاس هلا قالوا راحي وأعرف كان مركب فرحت كي إبراهيم ماشي كراد. المهم شكل ماشي سمريسا ورنيكي بروفيسورك اها wuxuu soo jeediyay Professor Kushagi wuxuu soo jeediyay 150 kilomitir Soomaaliya gudaheeda in buffer zone laga sameeyo. 150 kilomitir waxa waaye feer ka soo bilaaw ilaa Buulburd. feer ilaa Buulburd waaye hadda xariiq fiiri waxa dabacsiin idin sheegay xariijinta mujida muuqaalkaas. baleek wuxuu rabaa in taas in buffer zone noqoto waa Soomaaliya oo rooti camal dhaxdo loo kala jeexwaaya jeexran inay macnaha la boodaan buffer zone macnihiisu waxa waaye meeshaas Etoobiyaana ka taliyo afaariis lama soo gali karo walaalow gadaal u duruq waay macnaha ma fahamtay. marka barnaamijkan buffer zone-ka annaga la rabaa inaan ka hortagno oo badbaadsano. Masar kulli waxay noo qaban kartaa aan meeshii oolin. waxaan rabaa qodobka dambe ugu dambeeyay inaan galo oo waxa soo maqlay ahay nimay waxaa maqlayaaba dad jaajuusina oo Masar ah oo hay'adaha cuntada iyo waxyaabaas u shaqeeyo
oo masar laakiin masar u shaqeeyo jaajuusiin ah sheekadan meelaha ka soo maqlay boqol ma xaqiijin karo waxaa lahay muddo 3 sano ah Soomaaliya dib ugu soo laalaabanayeen maamul goboleedyadii ay tageen fiiriya waxaa la leeyahay maamul goboleedyada kulli kuwaan masaarida ah ayagoo wato alaabtii bisha cas iyo waxaas marka waxay soo ogaadeen kuwa masaarida ah jaajuusiin tahay maamul goboleedyada eelboorka markay ka degaanba waxa soo galbinaayo waa sargaal Ethiopian iyo ciidamo Soomaali ah dhigeysta sargaal Ethiopian iyo ciidamo Soomaali leeba soo galbinooyo madaxtooyada markay galaan isdhahaan ninkan madaxweynaha ah maamul goboleedkan la shir markay isdhahaan Ethiopian meesh taagan Ethiopian meesha taagan sheekadana horta soo maqlay yani marka masaaridii jaajuusiinta markay dib u laabteen qaahir ee tageen madaxweyne Sisi ee la fariistaan waxay dhaheen war heede dhulkaas Ethiopian ka taliyo fiiriya waxaan waxa soo maqlay waay don't quote on me meelaha soo akhri marka Sisi wuxuu dhahay kuwan webigana naga dhistay biyi webiga naga leexsaday hadda waxay ku soo siqayaan Soomaaliya marka Masar waxay ka baqday koorna in lagu qabto dhageysiya Masar Ethiopia waxay ogeed military ahaan inay isdhisayso bad kaliya u baahneen marka waxay ka baqday dhankan webigana in super power ay ka noqdaan dadkan dhankan badda Hindi ilaa badda cas hadii la qabsadane dhulkaas kaabalaad waxa ka noqon doono Ethiopianka Masar saasay ku sii fikirtay marka waxay isdhaaday hadda Soomaaliya gelin oo aniga laftirkeyga buffer zone aanan samaysan iga qora maalmaha soo socdo masaarida waxa arki doontaa dhankan dhul xeebeedka Muqdisho labada dhinacba waqooyiga iyo koonfurta waxay u badnaan doonaan Turki iyo Masar oo hadda heshiis saxiixay sida ogeedeen 2 isbuuc ka hor heshiisku waxa ku jiro Soomaaliya in la hubeeyo laakiin labadan ciidan saldhigyo waaweyn ay ka samaystaan xitaa Ethiopianka duu soo siqo